السلام عليكم كسو دواada qisada ramadaanka maalin maalmaha kamida cali bani abi daalib ayaa wuxuu soo aaday masjidka nabiga si uu ugu dukado salaad sunna ah. markii uu masjidka sii galay ayuu wuxuu arkay nin taagan masjidka albaabkiisa. markaasuu wuxuu ku yiri ninkii, waxaan doonayaa inaan salaatu duha soo dukado, waxaan ka rabaa inaad baqasheeda ii siixayso. ninkii ayaa ka aqbalay. calina masjidka ayuu galay. wax yar kadib cali wuxuu ka soo baxay masjidka, wuxuuna ku fikiray ninkii wanaagga u sameeyay inuu abaalmarin siiyo. wuxuuna u soo bixiyay 2 diinaar. balse nasiib wanaag ninkii waa uu tagay. wuxuuna arkay baqashiisii oo meesha taagan, liijaankiina uu ka maqan yahay. cali wuxuu ogaaday inuu ninkii ka xaday liijaanka baqashiisa. kadib wuxuu u yeeray wiil yar oo adoon ah, wuxuuna ku yiri waxaad qaadaa 2 diinaar, waxaadna suuqa iga soo iibisaa liijaan. wiilkii yaraa ayaa wuxuu soo aaday suuqa. isaga oo liijaanka raadinaya ayuu wuxuu arkay ninkii oo liijaanka naadinaya oo dhahaya yaa iga siinay 2 diinaar. wiilkii liijaankii ayuu ka soo iibay ninkii, wuxuuna u keenay cali. cali markii uu arkay aad ayuu ula yaabay, wuxuuna yiri ninkani waa uu degdegiyay, wuxuuna qaatay 2 diinaar oo xaraan ah. haddii uu sabri lahaa wuxuu qaadan lahaa ayadoo xalaal ah. qisadeena halka ayay nooga eg tahay. qisadani waxaan ka qaadanaynaa waxay tahay in aan mar waliba sabr yeelano, wada xalaal ahna aan ku raadin risaqeena. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay channelka maalmaha, fadlan subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaal cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid. يا رب فاقبل صومنا وأعده عاما بعد عام. يا رب صل على الذي فاقت محامده الأنام، فاقت محامده الأنام. وأظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام. فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام، في الكون ينحسر الظلام.